waatahay dhegayste ku soo dhowow bandhigeenna aan weligiis laga xiiso go'en ee sahanka nolosha waan ku faraxsanahay inaad nala dhegaysatid xalqada maanta xalqadii la soo dhaafay madaxa burcadbadeedda waxa uu digniintii ugu dambaysay siiyey cabdinuur oo waxa uu sheegay inuu sirtooda kashifi doono haddii aan xabsiga laga sii deen 24 sac gudahood waxay ku dambayn doontaa arrintaasi inta lagu jiro xalqadan maama cali waxay sii kordhin doontaa faragelinta reerka maryam maxay maryam samayn doontaa si ay mar qura u joojiso arrimahaasi kala soco halkan isla hadda sheekooyinkaas iyo kuwo kale oo ku saabsan sahanka nolosha ku raaxayso cabdinuur jooji socodka badan ayaan ku idhi aad baad u dhaqaaqaysaa moogay oo ma waxaa kula fiican inaad ku wareertid eegmada safiitada qolka xabsiga waa inaad ka hor tagtaa in middaasi dhacdo haddii madaxa burcadbadeedku noo sheego guddoomiyaha xabsiga ayaan dalaq dhahaynaa waan ogahay middaas mooge may ahayn inaan ku soo laabto oo aan kaala shaqeeyo adiga oo mooga ah ganacsiga hubka suuqa madow xirfaddaydii shaqo way u dhammaatay bas waaye safaleeti ma kuu dhiibaa aad ilmada isaga tirtide maya mooge uma baahni marba intii aad halkan kolba dhinac u socon lahayd oo aad naftaada inkaari lahayd orodoo ninka xabsiga ka soo saar meesha yuuna ku sii jirina dhaqso arrintaa ka shaqee way ficnaan lahayd inay sidaas u sahlan tahay arrintu moogow maxaad u malaynaysaa inuu guddoomiyuhu samayn doono markuu ogaado inaan sii daayay madaxii burcadbadeedda haye ma ogaan karno haddii aad falkan ku dhaqaaqin saacadahan soo socda may maqlaysaa yaa dee waxuu naga samay salle cale waa inaad waxuun tallaabo aynu qaadnaa oo tallaabo wanaagsan aad qaaddaa oo dhinaca fiicanoo sidii ninkaa u soo bixi laha jah war odhada nagala tag warkaaga qaabta darar ee aan faa'iidada lahayn moogow cabdinuur anigu ma ihi dadka qaar oo wax qarqariya iyada oo la arkaya in arrimuhu meel xun ay marayaan waryaa may maqlaysaa xaaladdeennu quus ayay taagan tahay mar hore ayuu kuu digay madaxa burcadbadeedku wakhtiguna waa inoogu socdaa waa inaannu tallaabo degdega qaadnaa waryaa maxaad iga dhawraysaa war moogow tillaabo qaad unbaad isaga jirtaaye war ma aqaano wax aan sameeyo iyo meel aan tala ka bilaabo hore adigu cabdinuur waxaa tahay guddoomiyaha degmada daaqsan ee ilmada iska tir horta xilka aad haysid ka faa'iidaysa ayaan ku leeyahay haddii aad sidaas yeeli weydid oo dee madaxa burcadbadeedku ka dhabeeya hanjabaaddiisa markaas way inoo dhammaatay ayaan ku leeyahay marka waa inaynu isu diyaarnaa inaynu xidhanno dharkii maxaabiista oo weliba innagu aannu lugaheenna ugu tagnaa ma aragtay harqaanlihii inoo toli lahaa dharkaasi kaluumaysiga halloo wada bareero inuu yahay mid loo bogo nafaqadiisu badan tahay bayaan weeye waa hubaale haya daahir heestaan kama daashid miya aniga ma dhegaysanaya eraadihii ka socotaa maasha allah wax badan ayay ku soo celceliyaan waan ogahay aniga ayaa ka codsaday inay asxaan ii sameeyaan iyagana way soo daayaan xaawakiin ayaa iga codsatay inaan ka caawiyo suuqgaynta ganacsigeeda kalluunka waan gartay khayr weeye marka heestani dadka waxay ku dhiirigelinaysaa faa'iidooyinka laga helo kalluun cunista waa istaraatiijiyad fiican nasiib waxaa la dhashay walaal adiga oo kale ah waan ogahay si hoose oo xishood ka muuqda ayaad u tiri maxaa haye waxaan rajaynayaa in madaxa burcadbadeeddu uu guddoomiyaha gobolka u sheegi doono ragga ka dambeeya ganacsiga suuqa madow marka uu sheego waxaan curin doonnaa hees ka hadlaysa khasaaraha uu leeyahay ganacsiga badeecooyinka suuqa madow loomaba baanaa inaan sugno waa inaan ku dhaqaaqnaa oo aan hadda hal hees qornaa
niyad uma hayo laakiin marka uu madaxa burcadbadeeddu noo sheego magacyada cidda shuraakada kula ah dembiga uma baahnaan doono niyad aan wax ku qorno heestu iyada ayaa isqori doonta maxaa nafteena sida xaddaafka ugu necebnahay maxaanu rabnaa inaan bulshadeena u hormari weydo inaan bulshadeenu u oggolaano ganacsiga suuqa madow waxay la mid tahay inaan oggolaanay intuu u soo dhaca gurigeenna waxaanu baahanahay inaan bulshahaan isku duubnaano oo aan sida wada jir uga hortagnaa waaw shaqo fiican ayaad qabatay waxaan u malaynayay inaad niyad u heestay durba waxay niyaddaydu fiicnaatay markii aan anagoo ah ciidanka ilaalada xeebuhu aan gacanta ku dhignay hubka sida qarsoodiga ah loo soo geliyey oo aan mukhalisiinta kala wareegnay waa inaan helnaa habkii aan bulshadeenna uga joojin lahayn ka ganacsiga suuqa madow mar qura sidaas ayaa lagaa rabaa ballaxanka la saarayo isii aniguna waxaan u raadinayaa muusig ku fiican heesta maxaa nafteena sida xaddaafka ugu necebnahay haye cali waxaan xilli hore shaqada uga soo tegey si aan maanta qada sharaf kugu sameeyo oho maryan cali maxaadan ugu faraxsanay inaad ii aragtid waxaan u malaynaya in aad farxad darteed la boodboodi doontid maanta cali kaftankaas qosol miiran ayuu ahaa alla maryan ma filanayni inaad soo noqonaysid gurigan anigaa iska leh oo maxaadan u filayn inaa imaan doono maryan hooyo ayaa gabadha habaryar dhashay qada iigu soo dhiibtay haa haddii aan ogaan lahaa inaad imaanaysid xoogaa ayaan kuu reebi lahayn hoo cali jalaatada cun inta aysan kaa milmin waad ku mahadsan tahay jalaatada nimca qof aad u naxariis badan ayaa tahay aad baad u mahadsan tahay mar kale waan ka xumahay maryan inaan cunto kuu reebi weyno ninkaaga waayo qofka gaajada ka badatay oo isagaa 2 saxan oo dhan ismariye ma sidaasaa haa haye marba haddii ninkii aan u imid inaan cunto u kariyo wuu dheragsan yahay oo uu weliba haysto qof uu la jooggeeda ku raaxaysanayo waan ka faa'iidaysanayaa wakhtiga qadada la ii soo siiyey oo waan indhaguduudsanayaa iga raalli ahaada ish naagtaadu la yaab ayay leedahay muxuu yahay xanaaqa ka muuqda ma aqaan wallahi waa iska saan maalmahan siday doontaba ha ahaatee aan jalaatada cuno intaysan iga milmin saxanka nolosha mudane guddoomiye sidee tahay waan fiicanha askari waxaan u imid inaan maxbuuskaas sii daayo maxbuuskee madaxa burcadbadeedda ayaan ka hadlayaa madaxa burcadbadeedda ah weli la iima sheegin inuu xor yahay oo uu bixi karo hagaag imaqal aniga ayaa ku leh hadda ayaan sii daynayaa guddoomiyaha gobolku ma ka warqabaa markii u dembaysay wuxuu dhahay cunto iyo biyo midna yaan la siinin inta aan ka soo laabanayo askari anigu iskama imaan waxaan ku imid amar ka socda guddoomiyaha gobolka haye hadday sidaa tahay mise isagaan wacnaa horta askari ma waxaad rabtaa inaan ku dacweeyo oo aan dhaho amar diiddo ayuu sameeyey anigu waxaan ahay guddoomiyaha degmada daaqsan ma shaki baa kaaga jira middaas maya mudane raalli noqo hadda ayaan sii daynayaa madaxa burcadbadeedow xilligii aad bixi lahayd ayaa la gaaray hadda xor ayaa tahay xilli fiican ayaad timid
madaxa burcadbadeedow run ahaantii aad baan uga xumahay inaan xabsiga kugu sii hayno innagoon haynin caddaymo nagu filan waad bixi kartaa haddana mahadsanid nabadeey haye askari xaggee baan saxiixaa dhegtayda ii sii daa maryan maxaa kaa qaldan daa gabadha dhegta u daa ha ka jiidina bal indha adeegeeda daya naayaa xadkayga waa soo dhaaftay hadda maxaa kaa qaldan cali iga celi naagta yaa ku dhahay go'a sariirtayda ka beddel naayaa maxaad isku malaysaa horta maama cali ayaa ii soo dirtay oo igu tiri wiilkayga u soo adeeg marka waxaan arkay go'a sariirta ku goglan oo wasaq ah marka waan ka beddelay oo waan dhaqay waad dheeraynaysaa walle xadkaagina waa soo gudubta naga dhaaf dee maryan waa ka badbadinaysaaye gurigayga ii dhaaf nimca bax bannaanka u bax haddii aad mar kale halkan ku soo laabatid waad dhiman doontaa malaha malaggaagii ayaa galay hoy alxamdulilah mar haddayna dhaafto qumayadaas maryane intaa kadib waxaaga waa ka daray waad ka sii daraysaaba adiga iga aamus cali tabar aan kugula hadla ma haayee aamus see waay maryan yaaq adig maxaa kaa qaldan shaqada ayaan ku laabanayaa waxaan u soo laabtay in aan wakhti fiican la qaato ninkayga laakiin wayba iska muuqataa inaan la ii rabin yaaq maryane madaxa burcadbadeedda soomaali wanaagsan maahan hibo hawada carafta badan ee freeshka ah anigaa ku idhi oo haddii aad dhowr cisho xabsiga ku jirtid waxaa wax caadi ah kula noqonaya lugaha shiiraya ee dadka sidee ku soo baxday waxay ahayd inaad xabsiga ku jirtid hibo waxaas wax sii soconaya ma ahayn laakiin amarka laguugu soo xidhay waxaa bixiyey guddoomiyaha gobolka haa waa runta laakiin ma og tahay hibo adduunkan waxaa waajib ah inaad dad tacbatid maxaa ka waddaa waxaan u malaynayay inaad tahay madaxa tababarka ciidanka ilaalada xeebaha waxay ahayd inaad noqotid qof caqli badan oo fahmo fudud hadalka aan kuu sheegay xaggee ayuu kaa maray yaah maxaadan wax u fahmayn middaan laguu dhaafi maayo waan arki doonnaa anaa kaa ballanqaaday middaas madax burcadbadeedow lagu dhaafi maayo oo maxaad samayn doontaa miyaad i xidhi doontaa annagu badda ma joogno oo halkaas ayay shaqada ciidanka ilaalada xeebuhu ku eg tahay ma sheegin inaad intaad i xambaarto badda i geynaysid hadda ama aad halkan biyo ka dhigaysid oo aad sidaas igu xidhaysid wax lagu qoslamaada sheegin madax burcadbadeedow hibo runtii shactiroole ayaan aha aniga kollay sidaas ayaa laygu yidhi naayaa hibo xaggee u socotaa sheekadaada waan ku haystay runtii waayahay saxanka nolosha kalkaalisa maryam maxaad isku qarinaysaa qolkan kaydka cafan waan soo baxayaa dhakhtar faarax ma fiican tahay haa waan fiicnahay kalkaalisa maryam waan ogahay oo muddo dheer isma ayan aqoon laakiin haddii aadan ficnayn fadlan ii sheeg qof kaalintaadii sii buuxiyo ayaan u wici karaa waa haddii aad rabtid inaad wakhti yar ku soo qaadatid gurigaas ma raba inaan hadda aado haddii wax kasta la igu siinaayo maryam haddii aad dareemaysid wax dhibaato ah
oo guurkaaga ku saabsan waa inaad cali la hadashaa ma ogaan doono inaad qolka kaydka ka ooyaysay haddii aadan kala hadlin waxa ku dhibayo dhakhtar ma ogeyn markii cali uu i guursanayay in dhammaan qoyskiisa ay i guursadeen uma malaynaya in aan u dulqaadan karo waxaan isaga la hadal waayo waa ninkaaga oo wax kasta oo dhaca waa uu ku jecel yahay waa runtaa hadda gurigaaga aad oo soo xalli arrimahaas qof kaalintaada buuxiyo ayaan u yeerayaa mahadsanid dhakhtar runtii waan kaaga mahadcelinayaa maxaad ka waddaa madaxa burcadbadeedda uu ka soo baxay xabsiga hibo anigu amarkaas ma aanan bixin see wax u jiraan adigu amarkaas maada bixin laakiin qof kale ayaa bixiyey guddoomiye yaa waayo qofkaas yaase amarkaa siiyey waxaani waa li weye hibo waan ogahay aniga ayaa bannaanka ku soo arkay wuu ii faanay oo wuxuu igu yidhi waa inaad dad tacbataa waan gartay waad ku mahadsan tahay inaad warkaa ii sheegtid hibo aniga ayaa ka salgaaraya haa waxaan rajaynayaa inaan ogaan doonno waxa dhacaya waxaan ka wadaa ciidanka ilaalada xeebuhu waxay ku rajo weynaayeen in la qabtay oo ciqaabtiisa uu mari doono qof loo tirinayo inuu ku lug leeyahay badeecaddii suuqa madow ee la xaday qof baa ciqaabtiisa mari doona hibo haba ka yaabin inaan niyad jabiyo ciidanka ilaalada xeebaha waan ogahay shaqadii adkayd ee aad adiga iyo kooxdaada ciidanka ilaalada xeebuhu aad qabateen markii aad soo qabanayseen badeecaddii suuqa madow ahayd ee sida qarsoodiga ah lagu soo geliyey mahadsanid guddoomiye khayr ayaan kuu rajaynayaa ii soo sheeg haddii aad caawinaad uga baahatid ciidanka ilaalada xeebaha waa yahay waan ku soo wargelin doonaa ii warran askari fiican guddoomiye yaa bixiya amarka lagu sii daayay madaxa burcadbadeedda adiga mudane war ma aniga halkan miyaad igu aragtay aniga guddoomiyaha degmada cabdinuur ayaa ii sheegay inaad soo dirtay oo uu dhankaaga ka socdo yaa waan gartay mudane ma dhib baa jira oo guddoomiyaha degmada cabdinuur adigu ma soo dirin miya warku intaasa ku ekaada hadda askari hadhow baan kula soo hadlayaa waadna mahadsan tahay halow cabdinuur xafiiskayga iigu kaalay hal mar saxanka nolosha madaxa burcadbadeed runtii waan ku faraxsanahay inaan ku arko alla maxay farxad iga badatay yaa maasha allah haa sax mooge qosolkaas iyo dhowlacaddayntaas bugta ah iga joojiniyahow meel kale ayay ka anfacayaane qaraarka maxaa keenay saaxiibow waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi ku sii jiri maysid xabsigan uraya oo rag aan leennaho lagaa soo saarayo sababta keliya ayaan u soo baxay waa hanjabaaddii aan idinku hanjabay inaan idin sheegi doono labadiinna si kastaba ha ahaatee wixii tegey yaynaan ku laabannin oo yaynaan ku mashquulin cabdinuur ayaa iyo dhul isu keenay kolkaasuu sida xabsiga kaaga soo saaray nin la ilaawi kara maaha waa nin karbeed wuxuu cirka iyo dhulka isugu keenay si uu naftiisa uga badbaadiyo qabowga sibirka xabsiga waxay doontaba ha ahaatee si fiican ayaan noogu shaqaysay arrintaasi marka saaxiibow ganacsigii ayaan dib ugu bilaabaynaa wax kasta waa sidii loogu talagalay horta saacadba saacad qorshey aan ugu talagalnay way shaqeeyeen marka waxaan ku leeyahay saaxiibow raggaagii soo diyaari si ay uga qayb qaataan dee suuqgeynta ma garatay cabdinuurna ma isaga ayaa nagu garab siin doonaa waxaan ka wadaa ma isaga ayaa weli naga xigsan doonaa dhanka guddoomiyaha gobolka saaxiib cabdinuur waa nin ma aragtay run ahaantii aqli badan wuuna ka soo bixi doonaa run ahaantii mashaqadan iyo dee dhibaatadan uu ku jiro marka adigu istajiyo ninkaasi waxaa weeyaan nin wanaagsan weeye waa ninka aad iyo aad run ahaantii kaaga fikira adigana mooge sidaas alla ka rajee sababtoo ah aniga waxaan u arkaa inuu yahay fulay oo haddii xaaladdu adkaato magacyadeenna ayuu ku heesi doonaa sidii shimbirtii oo waxa uu sheegi doonaa ganacsigeenna suuqa madow saxanka nolosha
cabdinuur maxay tahay warkan aan maqlaya ee ah inaad sii daysay madaxii burcadbadeedda haa ma arrintaas guddoomiye aniga sharciga un baan ilaalinayey oo sharcigu wuxuu qabaa in qof xabsiga aan lagu hayn karin muddo 24 saac ka badan haddii aanan loo hayn caddayn ku filan oo qofkaas dembiyadiisa qiixaya war aniga ayaa dalbaday in la soo xidho aniga ayay ahayd inaan xabsiga ka soo saaro ee adiga ma aysan ahayn shaqadaada maxay ku dhacday waan ka xumahay mudane guddoomiye ma iga ahayn inaan ku dhibaateeyo adiga ama aan shaqadaada ku dheelo anigu shaqadayda un baan qabsanayay maadaama oo aan ahay guddoomiyaha degmada daaqsan hadda aad ayaan uga xumaha arrintaas laakiin waan sixi karaa guddoomiye wixii aan qalday marka ma dalbaa in dib loo soo xidho maya hadda middaasi muhiim ma aha waan ka xumahay guddoomiye run ahaantii aad baan uga xumahay wixii dhacay waxaan u haystay inaan wax quman samaynayo raalli noqo mudane guddoomiye waxaan filayaa in aadan igu qabsan doonin arrintii aan sameeyey waa caadi waad iska bixi kartaa xasan fadlan xafiiska iiga umow bal aan hal daqiiqad kula hadle cabdinuur wuxuu isu malaynayaa inuu caqli badan yahay waxaan tusi doonaa cidda caqliga badan hadda sidee tahay guddoomiye xasan soo gal gudaha oo albaabka soo xir waa ikan guddoomiye xasanow aniga iyo cabdinuur kalsooniday naga dhaxaysay mar kale ayay burburtay ma fahamti intuu iga hor yimid ayuu xabsiga ka sii daayay madaxii burcadbadeed maxaa middaas dib ugu laaban mayno waxaan kaa rabaa in aad si dhow isaga ula socotid waxaan rabaa inaad shaqo ka dhigatid raac meel kasta oo uu tago ma fahamti haddii aad rabtid ha ka harin daba dhiga ninkaas waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa uu maahageeyahay haye waa yahay mudane sidaas ayaan samaynayaa laakiin yaan lagu ogaanyaa wuxuu u malaynayaa inuuna siree waxaan tusi doonaa inaanan cayaar ku noqon guddoomiyaha gobolka daaqsan waxaan rabaa inuu ka shallaayo khiyaanadii uu ka galay dawladdiisa maryan soo xaalku caadi maaha xilli hore ayaad guriga timide cali runtii waa la isoo fasaxay si aan u wada hadalno cali sakortii aaway qaanadda kore ayay ku jirtaa hooyo ma waxaad u malaynaysaa inay xaaskaaga qarisay si aanan u isticmaalin cali maxay hooyada halkan ka qabanaysaa waxaan u imid inaan ka salgaaro wixii idiin dhex maray adi iyo gabadha aan habaryartu u ahay ee nimco maxaad u soo garaacday maya hooyo waxaas ma jiraan mee garaacinba dagaal ma dhicin gabadha aad habaryarta u tahay xadkeedii ayay soo gudubtay marka u sheeg inay shaqo yeelato ayada aniga ayaa shaqo u soo dirsaday wiilkaygu waa shaqadayda oo aniga ayaa u soo diray inay caawiso sow adiga maaha haweenayda xirfadlayda ee mashquulka badan oo ma waxaad rabi lahayd inaan guriga joogo hadda weliba cali oo shaqola'aan ah ma sidaas ayaa rabtay inaan jacaylka ka dhiganno quraac iyo casho haa saasaa rabtay soo maaha maryan qofka aad la hadlaysid waa hooyaday inaad sidaa ula hadlashidna ma bannaana fadlan si deggan ula hadal waa hooyaday ma u jeeddaa cali anigoo ka weyn wax ixtiraam ah iima hayso sidee u ixtiraami doontaa ninkeeda ixtiraamka labada qofba waa looga baahan yahay bes maryan bes qofka aad la hadlaysid waa hooyaday waa inaa ogaataa taas sidaan aa ula hadlaysidna si ixtiraam leh ma ahan fadlan marka aad la hadlaysid hooyadayda si ixtiraamsan ula hadal sidaan ka dheh qolkayga ayaan aadayaa inta aanan dhihin wax aan hadhow ka qoomameeyo waxaan ku faraxsanahay inaan mudankeeda marsiiyo hadda laga bilaabo saa'id ayay kuu xushmadayn doontaa waan sii baxay wiilkayga waa inoo hadhow haye hooyo nabadey waad ku mahadsan tahay shaaxa iyo wax kastoo aad ii qabatid adigaa mudan hooyo maryanay ma kuu keenaa shaaxii ay hooyo karisay sug bal aan kuu soo shube oo aan qolka kugu keenee maryan maxaa dhacay maxaa dharka boorsadda ugu goranaysaa sow xaalku caadi maaha adigu ma indhaha la'dahay waxba ma arki kartid miya waan arkaa inaad dharka guranaysid laakiin ma fahmayo waxa socda wax ii sheeg waan ogahay marka aan meel la iiga baahnayn maxaad ka waddaa waxaas
gurigaanba adiga iskale waa gurigaagiiye miyaa sidaas miyaa runtii haa dabcan waa sidaas marka sidee ku dhacda in qof kasta oo gurigan yimaada hadalkiisa la iga hormariyo yaah naga dhaafdee maryane maxaad uga badbadinaysaa hooyaday iyo gabadha habarirta ee dhashay waxay rabaan inayna caawiyaan oo keliya wax kale ma jiraanba dabcan haa haye marka maaha inaan kaa hor istaaga caawinaaddooda waa inaan meesha u firaaqeeyaa si ay kuu caawiyaan aniga laftigayga hooyo ayaan leeyahay oo waad og tahay nabaday cali maryan kaale horta bal sug ha bixina kaalay waa tahay xaaladdu aad ayay u sii kululaanaysaa guriga cali iyo maryam sidoo kale cabdinuur waxa uu shaki ku abuuray guddoomiyaha gobolka oo baaritaan ayaa lagu wadaa kala soco kuwaas iyo kuwo kale oo badan xalqada soo socota ee sahanka nolosha intii lagu jiray xalqadani waxaan aragnay maryam oo dharkeedii guranaysa oo baxaysa iyada oo xanaaqsan mawduucaas ayayna ku saabsan tahay su'aasheenna xalqada maanta maryam waxay aad uga xanaaqsan tahay sodohdeed iyo ninkeeda cali waxay aadday guriga hooyadeed maryam gar ma u leedahay inay ka cabato faragelinta sodohdeed ay soo faragelisay reerkeeda maryam gar ma u leedahay inay ka cabato faragelinta sodohdeed ay soo faragelisay reerkeeda haddii ay jawaabtaadu haa tahay sabab haddii ay may tahayna soo raaci sababta fadlan nala wadaag fikirkaaga saddexda jawaabood ee ugu fiican waxay fursad u leeyihiin inay ku guulaystaan kaarka taleefanka lagu shubto fariin qoraal gaaban si bilaash ah noogu soo dir nambarka 354 ku bilow magacaaga da'daada iyo meesha aad joogtid wayna farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga ogaanno waad ku mahadsan tahay dhegaysiga xalqadan ballanteennu waa toddobaadka soo socda isla xilligan nabadgelyo sahanka